السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقريقان عبد القادر وإذن لها الليو عاو وتاريخ ده هاي لبدا بشي لبي تبنات أما ديسمبر لبدا كونيو أفر إلا باتنكا إن اشتقاق دان إلا السنة كانوا لن سعودي انتي سبدا وده حيث لبدا دولة فيدرالكا Soomaaliya iyo dowladda federaalka Ethiopia oo Soomaaliya ay ka cabanayso sida ugu tumanayo xeerarka adduunka, xeerka diblomaasiyadda iyo wada shaqaynta iyo nabad ku wada noolaanshaha dowladaha dariska ah sida ay tabanayso dowladda federaalka Soomaaliya kadib markii oo Abiy Ahmed oo warbaahinta dhowr jeer ka sheegay isla markaana baarlamaanka federaalka Ethiopia Addis Ababa uu ka yiri bad ayaan tagaynaa xoog iyo xeeladbo oo ugu gol lahaa halka loo yaqaano Somaliland maanta oo ka tirsanaan jirtay wixii la oran jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliya haddana loo yaqaano dowladda federaalka ee Soomaaliya maadaama dhowr af oo ku hadlay maadaama waxyaabo isdamarin iyo ku tumasho xeerka diblomaasiyadda ee Vienna Convention soo baxay 1961 oo Abiy Ahmed oo ku tuntay asagoo isku dayay in maaragtay oo hor istaago wafdiga hogaaminayay dowladda federaalka Soomaaliya oo horkacaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud marka sida kaliya lagu dhameyn kara aniga aan qabo waxa weeye tusaale ahaan in Soomaaliya si toos ah ay u abaarto qodobka 38aad ee xeerka maxkamadda cadaaladda adduunka taasoo sida runta garhayeenka ugu weyn adduunka ee xiriirka dowladaha ka dhexeeyo iyo sida dowladaha ay u tuntaan sharafta diblomaasiyadda iyo diblomaasiyiinta iyo habraaca waxa loo yaqaano protokoolada marka dowladaha ay shirayaan sida shirkii midowga Afrika waxyaabay dhacay waan ognahay in loo dhacay hoteelkii madaxweynaha isla markaana gacan ka hadal ay dhacday oo askar aan qaabilsaneen askartii maaragtay loogu talagalay weligood loogu talagalay nabadda iyo hab socodka wanaagsan ee midowga Afrika oo weligood ahaa askar dhexdhexaada aan ka tirsanay ciidanka Ethiopia sida ay tahay sida runta nidaamka jamciyadda ka dhexeysa ilaan askarta waardiyeysa diblomaasiyiinta iyo markay tagayaan United Nations Organization New York ma aha askarta New York State of New York ma aha askarta federaalka waxa loo yaqaan FBI-da ma aha waa askar oo u qaabilsan midowga ururka jamciyadda ka dhexeyso midowga Afrika kaasoo kale ay lahayd lama isticmaalin askar caadi ah oo jihadaysan ayaa hoteelka ugu dhacay madaxweynihii isla markaana isku dayay in maaragtay afduubaan ay ka xanibaan markii ay ku guuleysatay ama ay ku guuleysteen wafdiga federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayagoo si fiican ay u daafaceen askartii la socotay oo ilaalada oo dhalinyarada ah ay soo dhaqaaqeen haddana gaadiidkooda baa la soo istaagay oo laga hor istaagay in maaragtay waqtiga loogu talagalay ayagoo la sugaayay ay tagaan qaacadii lagu shiraayay taasna ay dibindaabiya tahay marka nasiib wanaag Ismaaciil Umar Geelle oo madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ah ayaa si runta la kulmay wadadii ayagoo madaxweynaha Soomaaliya la hor istaagay isla markaana taa ayaa fasaxday in madaxweynaha uu soo qaado isla markaana qaacada u yimaado markii qaacada ay yimid madaxweynaha uu yimid asaga ilaaladiisa ayadoo maaragtay ay keeneen wafdigii dowladda Djibouti waxaa dhacday in isla markaa shaqaaqad kale meesha ay ka bilaabatay oo laba madaxweyne kale ayagana daris ahaa u dhaxaysay Paul Kagame madaxweynaha jamhuuriyadda Rwanda iyo Felix Tshisekedi madaxweynaha Democratic Republic of Congo isla markaana dagaal ay gacan ka hadal ay ka dhaceen meesha ayada marka laba shaqaaqood baa ka jirtay baryahan waa la cabanayay dowlado badan baa cabanayay in maaragtay Abiy Ahmed oo ka dhigtay gurigiisii oo kale xarunta midowga Afrika
arrimahan oo kale weligood kama dhicin ilaa ay 1963 marka dowlado badan ayaa cabanaya hadda oo dhahay waan laga raraa meesha si runtaane doctor Nkrumah ayaa keenay meesha 63 laakiin waxaa lagu aasaasay midowga Afrika Accra Ghana kadib markii 62 ay u dhaarteen askartii ama ciidankii maaragtay militariga Ghana oo lagu eedeeyay madaxweynihii Dr. Nkrumah in maaragtay oona danaynin horumarka dalkiisa laakiin danaynaya horumarka Afrika waayo infrastructure-kii ugu horreeyay oo ururka midowga Africa the organization of the African Unity waxaa lagu aasaasay Ghana halkaasaa maaragtay headquarter ugu horeysa laga dhisay laakiinse dhowr jeer baa loo sheegay madaxweynihii hore oo ahaa aabihii pan-africanismka ee Africa Dr. Nkrumah oo waxaa la waan ku qaabeynaa haddii maaragtay aada joojin dhaqaalaheena oo Africa gelinaysay iyo aad iyo aad sida aad ugu dadaashid mideynta Africa taa marka waxay dhabowday markii la inqilaabay asaga intaan la inqilaabin ka horne wuxuu la hadlay Haile Selassie oo yiri waa la daba taagan yahay waxaan usoo rarayaa Addis Ababa marka 63 ayaa Dr. Nkrumah oo wuxuu ballamiyay madaxweynihii intii markaa gobonimo haysatay Africa aan soo nimaadno Addis Ababa ayaa markaa kulankii oo ugu horreeyay oo officially in meesha ay noqoto the headquarters of Organization African Unity halkaasuu ka bilaabmay 63 laakiin ururka waxaa lagu dhisay Accra Ghana dadka ma ogo laakiin taariikhda waa sida oo waxaa keentay xaalad oo madaxweynihii aasaasay oo keenay talada lahaa oo juhdiga geliyay ayaa ciidankii oo Ghana u dhaarteen haddii maaragtay oo meesha uu ka radha ama wadeenin dhaqaalaha uu gelinaya Africa inay inqilaabi doonaan sidaa bay ku timid haddana waa laga rari karaa waxaan qabaa in laga raro maadaama oo shirar kale lagu qaban karin meesha haddii lagu qabtana gacan qaadka meesha kusii soconayo marka waxaan rabaa in maaragtay xoogaha aan ka hadlo xeerka si toos u taabanayo oo xeerarka ugu wanaagsan adduunka oo United Nations kasoo diyaar gareys adduunyada oo dhan uu saxiixay uu ka mid yahay waa Vienna Convention on Diplomatic Relations ama on Diplomacy 1961 oo maaragtay lagu saxiixay laguna maaragtay guddoomiyey Vienna Austria oo ah xarunta saddexaad United Nations ta koobaad waa New York tan labaadna waa Geneva tan saddexaadna waa Vienna Austria marka xeerka wuxuu leeyahay tusaale ahaan Vienna Convention on Diplomatic Relations is an international treaty that defines framework for diplomatic relations between independent countries. In purpose is to facilitate the development of friendly relations between governments through a uniform set of practices and principles. Above all, it codifies the long-standing custom of diplomatic immunity, taas way gooyeen ama maaragtay way ku istaagan Ethiopianka, whereby diplomatic missions are granted privileges ayadana tanna way ku tunteen that enable diplomats to perform their functions, taasoo u fasaxayso diblomaasiyiinta in hawshooda ay si oo wanaagsan ay u wataan without fear ayagoon baqin or coercion ayadoon la qasbin. waa midda dhacday hadda lagu fidiga Soomaalida lagu sameeyay in laga cabsiyo had la jujuubo or harassment from the host country yaa waaye marka dalka waxaa sameynaya ama baadil ama handidaad waxa weeye host country waa dowladda marka goosha fidisay ama xarunteeda ay ku taalo Addis Ababa waa dowladda Ethiopia. dowladda Ethiopianka waxaa soo sameysay wuuna xeerkana wuu ku xusan yahay. The Vienna Convention is a cornerstone of modern international relations and international law and is almost universally ratified. waana xeer weyn adduunka dowlad kastaba ay siixday. Ethiopia ay siixday, Soomaaliya ay siixday. Anobsayban isla markaana ay ixtiraamaan. It's considered one of the most successful legal instruments drafted under the United Nations Organization. xeerka wanaagsan oo dowladda Afrika adduunka dhan ay isku afkartaan oo United Nations ku jiro gaar ahaan xitaa kuwii kontonka dowladood iyo
201 dowladood ee ku jira United Nations ka xataa dowlad kasta ay siixday inay aqbashay. Marka taa ayay ku tumatay dowladda Ethiopia hadda jirta oo hogaaminayo ninka loo yaqaano Abiy Ahmed. sidaa awgeed ana waxaa ila quman in waqti iska dhuman dowladda Xasan Sheekh oo hogaaminayo oo isla markiiba ay la xiriirto International Court of Justice isla markaana oo la isticmaalo qodobka 8 ee statute-ka ICJ-da kaasi oo u fasaxayo in maarad soo dhex gasho oo loo garqaado isla markaana la xukumo dowladda marka dambe la ogaaday inay gafi ku sameysay xeerka diblomaasiyadda iyo madaxbanaanida dowladaha sida oo maaragtay article 38 of the ICJ oo dhigayo xeerkeeda statute-keeda. Marka ayada laftigeeda waan idin akhrinayaa hadda waana exact si u qoran tahay ayaana maaragtay xaaladda u dhacdo. When the states associate marka dowladaha ay maaragtay ay wada xaajoonayaan collaborate, negotiate or dispute, naturally their attitudes vary according to what their governments believe the circumstances require. But we find that in certain kinds of situations they follow certain patterns of action. hase yeeshee marka qaarkood waxaan aragnaayo xeerka leeyahay dowladaha qaarkood inay xoogaa ka weecdaan oo wax kale ay sameeyaan. Some of these taa waxaa ka mid tusaale ahaan relate to condition and use according to the language of diplomacy inaan la bedelin sida runtaa afka diblomaasiyadda af ixtiraam leh isla markaana qadarin leh inaan la bedelin oo halka laga sii wado. But it's usually said that ayadana waxaa la sheegaa alongside the protocol ayadoo la fiirinaya protocolka and customary law ee xeerka caadada weligeed socon jiray oo lagu caadaystay adduunka dhan oo caadaystay oo xeer wanaagsan ahaa. There is also legal binding isla markaana waxaa meesha ay ku jiro heshiisyadii iyo shuruucyadii oo dowladaha ay siixeen oo ah legal binding oo mid lagu ciqaabi karaa ama lagu soo maxkamadeyn karaa. Ma fahmaysa inay ka fakin karin. Diplomacy also requires a high degree of consideration for what good order or politeness offers. Diplomaasiyaddan waxay u baahan tahay ixtiraam iyo politeness iyo dabeecad wanaag ay u baahan tahay diplomaasiyadda. Diplomacy also requires a high degree of consideration for what good order or politeness offers. The custom is followed by reason, or reason is for politeness. Courtoisie in French. It constitutes what's called comitas gentium in Latin. ayadana waa arrin muhiima oo la rabo dowladahaas inayna maaragtay garab marin. Also known as comity refers to practice among political entities such as nations, states, or courts of different jurisdictions. It involves mutual recognition of legislative, executive, and judicial act. sidaa wadeed marka maxkamadda ayaan qabaa in maaragtay la geeyo dowladda Ethiopia waxyaabihii ay sameysay Kampala iyo ku sameysay 2 jeer ugu yaraan ayadoo ku tumatay shuruucdii iyo madax banaanidii iyo qadarintii iyo xasaanadii diblomaasiyiintii halkaas ugu yimid ayadoo la isticmaalaya qodobka 8 ee xeerka maxkamadda u dejisan oo dowladaha ay maaragtay kala dhex gasho. Marka these are based on the wording according to the Article 38 of the Statute of the International Court of Justice. On international custom constituting evidence of general practice accepted as valid law. The court applies customary international law for which a general practice accepted as law constitutes evidence. It is already clear from this that customary international law en bloc, French word, becomes binding for new states even. Marka waa in ayadoo la isticmaalayo xeerka diblomaasiyadda iyo diblomaasiyiinta iyo xanaananta iyo xasaanada diblomaasiyadda iyo sharaf dhowrka madaxda marka shirarka u imaanayo waxaan qabaa in dowladda oo hadda Xasan ayna dhayalsan
isla markiiba ay la xiriirto ICJ-da ayadoo isticmaalayso Article 38 of the Statute of International Court of Justice sida uu dhigayo Vienna Convention on Diplomats of 1961. intaas ayaan ugu baxayaa. aad iyo aad ayaan u mahadsantihiin. waa Garyaan Cabdiqaadir oo idin dhahayo habeen wanaagsan iyo ismaqal dambe insha Allah tacaala.